shirkaygan jaraa'id waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto dagaalka lagula jiro khawaarijta oo dawladda Soomaaliya iyo shacabkeedu ay kula jiraan inaan ka iraahdo wixii igala gudboon marka koobaad iyo mar labaad ka badan waa idin salaam hadaatiin bahda SNTV fursadda aad nasiisan aad ugu mahadsantihiin intaas kadib waxaan rabaa dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya inaan mahad celiyo oo uga mahad celiyo guulaha ay ka soo hooyeen dagaalka ay la galeen khawaarijta intaas kadib waxa la rifaan oo la faray kama qodna hadda lafteeda waxaad moodaa dagaalku wali ma dhawa in guusha salkeeda la gaaro waa waxba ka sokay marka waxaan rabaa inaan maaragtay ra'yigeena ku beerino qaasatan aniga oday Soomaaliyeed ah oo Maxamed Xasan Xaad waxaan rabaa marka dagaalada sida loogu jiro sida loo baahnay wax badan ka dhiman sida la og yahay shabaab nimanka la dhihi jiray waxaan jecelahay wax maanta ka dambeeyo culeyskeedu inuu dadka Soomaaliyeed daayo dhibaatadii mugalaheeday dadka Soomaaliyeed gaarsiiyeen dhaqaalahooda iyo dalkooda iyo dadkooda ay gaarsiiyeen oo mahadada ah waxaan isleeyahay ilaahay baa maaragtay inna macal usri yusran wixii maanta ka dambeeyo waxaan isleenahay waa ilaahay waa ka faydi doona midda kale nimankaas haddaan taariikhdooda dib ugu laabano dagaalkooda maanta ka hor noo ekay laakiin qadartaa waxay tahay maalintii ay xukmantu alla qadara ka hor inaan waxba la samay karin hadda maanta waxaad moodaa in cuquubadii iyo xaqi ay galeen ilaahay inuu ka gudayo waad ogtihiin oo labada meelood oo Soomaalida ay ka soo galeen midda hore waxaa waa dadka diinay ugu soo gabadeen oo maadaama dadkan islaam uu yahay oo diinta jecel yahay waxay ugu soo dhuunteen islaamkay ugu soo dhuunteen diinta ay ku soo dhex gabadeen midda labaadna waxaa weeye qabaa'ilkii ka dhaadhiciyeen waxaan maaragtay jirin oo ay hanteen qalbigooda oo wixii hadda ka horeeyay ay ayagana ku gabaad ka dhigteen ilaahay wuxuu fahamsiiyay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba dhibtooda inay fahmaan diinka ay sheegeen waxba ka jirin ogaadaan maanta arintaas marka aan isleeyahay waa midda kaliya furaha u noqotay in guula laga soo hooyo waxaan rajo ka qabnaa inta ka hartay in la isdaba dhigo waxaan marka rabaa dadka inaan marta u ifiyo dagaalka waxa la yiri wixii koox dhibaaho inta badan ma dhibaan wax yar wixii dhibaaho wax badan ma dhibaan marka waxaan rabnaa inaan ciidamada iyo dadka la yiraahdo deegaanada oo macawsleyda inaan loogu simin dagaalka waxaan dawladdu inay si mugla u gasho oo dadka madaxda loo yaqaano haybadu dawladnimadu waa haybadaas waxaan rabnaa furmaha in la geeyo dadka Soomaaliyeed sida la og yahay waa aytam odayaasha rool ay leeyihiin roolkoodu waa inay ka soo muuqdaan waa in la baraarujiyo dadka hurdada waa in laga kaco shabaab nagu daymaayaan cabsi midda kale cabsi intaas la eg ilaahay baa mutaystay in shabaab laga baqo qof bini aadan oo adiga kulamada aad ka baqdo oo aad ka cibaadayso weydo oo maaragtay aad muxuu ahaa ka shaqayso weydo oo wax alaala wixii horumar laga sameey waayo waxa weeye waa lagu dambaabaa ilaahay baan ka codsanaynaa ama aan ka baryaynaa inuu naga cafiyo dambiga aan galnay oo dadkeena ka galnay iyo dhaqaalaheena iyo dalkeena maanta waxaan rabnaa inay noo noqoto fariin dadka shabaab iska celshay oo guulaha ka keenay waa dad qabaa'ila waa dad deegaana waa dadka la yiraahdo macawisleyda waa qabiilkii adkaysa way culeyskooda qaadi waay waxaan rabnaa marka ay noo noqdaan halku dhig dadkaas waxaan rabnaa say dagaalka u galeen in loo galo qof walba roolkiisa inuu ka galo odayaasha Soomaaliyeed kuwa dagaalada hadda meesha ka socdaan u badan Soomaalidu waxay leedahay deegaano kala duwan ay leedahay waxaan baaq gaar u jeedinaa dadka odayaasha oo siyaasiyiinta oo culimo u diinka oo aqoon-yahanka oo dhalinyarada oo haweenka Soomaaliyeed ee u dhashay labada dawlad goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle dagaalka inay u galaan si sax ah oo shabaab looga adkaa karo guusha laga gaaray oo hordhaca waxaan in la xaqiijiyo oo salkeeda maaragtay muxuu ahay la gaarsiyo meesha ku haboonta la gaarsiyo waad ogtihiin waxa ku dhintay malaayiin qofood waxa ku dhintay oo ku hanti baaray intaas ka badan waxa ku agoontooda intaas ka badan waxa asaysida intaas ka badan
dadka Soomaaliyeed haddii saddex loo dhigo hal dhig shabaab waa qabaa waa la hubaa mujeedaan marka waxaan rabnaa maanta dhibkaas dadka in laga faydo inaan sababteeda lahana rabnaa annagoo Soomaaliyo aan iskala soocin waxaan rabnaa si qaasatan waxaan ugu baaqayaa rabaa firinteeda inay ka faa'iideystaan nimanka la yiraahdo Galmudug iyo Hirshabeelle oo hadda aagag fara badan dagaalka looga jiro dagaalkaas waxaan rabaa in la tayeeyo waad ogtihiin shabaab cabsi nugu daymaayaan shabaab salsalaax nugu daymaayaan waxaan idin kugu baaqayaa hoon anoo maaragtay itaqaaniin waxaan rabaa in loo galo dagaalka si mug leh oo hufan oo maaragtay aan loo kala harin xoolaha in la geeyo meesha dadka in la geeyo akhyaarta ay tagaan ay ka soo muuqdaan furimaha haddii intaas la sameeyo waxaa la hubaa guusha salkeeda in la gaaraa waxaa la hubaa in guusha hordhaca la xaqiijina oo salkeeda aan gaari karno waxaan rabaa dagaalka aan la isku hagran dhalinyarada kaliya inaan la yaacin ayagana aan la hodin annaguna aanan maaragtay waxaan kala dhimano qabiya aanan guul ka raadin waxaan marka isku booraarujinayno anigu aan ku baaqa anoo maaragtay nin weyn oo oday ah oo Soomaali laga yaqaan inaan dagaalka galno odayaasha Soomaaliyeed waxaan ugu baaqa saaxiibaday beelaha odayaasha beelaha waxaan ugu baaqa in dagaalkaas si sax loo galo si kama dambaysa in loo galaan ka codsana waxaan rabaa roolka odayaashu leeyihiin waa wada naqaana dagaal badanaa la galay dib badanaa la soo maray siyaalo badanaa looga gudbay oo aad ogtihiin oo aad ku lahaydeen muxuu ahay qadarin iyo tixgelin iyo hormuudnimo adiyaan rab inaan soo celno dagaalkii aan galnay oo 30 sano iyo ka badan ku jirnay midkaana wallaahi billaahi tolla ka xaqnimo badan kana ka saxan waxaan rabnaa inaan ku galno dagaalkaas si hufan buuxda kala har lahayn mugle dawladda waxaan rabnaa inay nagu hogaamiso madaxda dawladda oo madaxweynuhu u horeeyo waxaan rabnaa furimaha in laga muujiyo mas'uuliyiin kala duwan oo bulshada qaybaheeda ka kooban inay ka muuqdaan meesha ilmaha dhilo qoryaha sita ay ka muuqdaan waxa dadka in la geeyo heybada bulshada ku dhaxle waa inay odayaashu tagaan waa in wasiiradu tagaan waa in culimadu diinku tago waa in ganacsatada tagto haddaan saas leeyin dhibku waa dheeraana waxaan ka codsanaa ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa waxaan ka codsanaa labada dawlad goboleed oo anagu aan ku abtirsado inay dagaalka si sax u galaan in guusha la xaqiijiyo inaan la baqin naftu waxay leedahay waqti wallahi inaadan cabsina ku badbaadayn dagaalna aadan ku dhimanayn haddaan alla ku qorin waxaan rabnaa in maaragtay laga tago rikoor waxaan rabnaa ilmaheena iyo dalkeena iyo dadkeena iyo dawladda anagu taga rikoor sax oo hadhow ay ku faani karaan ama ay wax ka baran karaan waxaan ku baraarujinaynaa annagoo warkaas ka leexleexanayn dagaalka waa lagu jiraa laakiin sidii saxda ahayd oo nimankaas guushooda lagu xaqiijin lahay oo ku dhiman lahaayeen looguma jiro been ma rabna in la sheego naftana inaan ku maaweelino waxaan saxayn ma rabno waxaan rabnaa dagaalka in la tayeeyo dagaalka in la geeyo dadka madaxda ah kula ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda dowrka muhiimka kule oo ay aamini karaan muxuu dadku aamini karaan waxa laga kicina hadda inta badan waxa waa dad miyigu waxay aaminayaan dad ay aaminayaan jiro yaqaaniin oo bulshada lagu dhex yaqaan dadkaas day arkaan wallahi sida la doonaa loo dhigi karaa dagaalka sida la doonay u galayaan laakiin haddii askarta loogu sino aniga waxaan leeyahay askartu guulay keeneen waa ku mahadsan yihiin waa ku amaanaynaa waana ku amaani doonaa laakiin waxay u baahan yihiin in la xoojiyo la tayeeyo qof dagaalka aan geli karno ma jirto xoolaa lagu geli karaa aqliya lagu geli karaa waxa lagu geli karaa haddii ilaahay kood maahay wacyi gelin dadka shabaab waxay ku qaldeen waxa weeye fikir qaldanay ku shubeen waa inaan mid sax ku shubno uga bedelno kii saxay kii qaldanay marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed xoogay leedahay fara badan oo shabaab looga adkaa karo xoolay leedahay shabaab looga adkaa karo dad wax garad ah heybad laha jiro haday dad bulshada wuxuu sheegaan warkooda laga hibaysanayo la aaminayo waxaan rabnaa walaalayaal Soomaaliyeed maanta cadawga Soomaaliya leedahay oo aan laga dhaqaaqi karin oo maaragtay muxuu ahay dhaqaalihayna cuuriyaamay oo dalkeena dadkeena cuuriyaamay ummadda Soomaaliyeed caruurta agoontahay leedahay bal xisaaba hantida ku burburtay bal xisaaba naagaha asayda saara bal xisaaba inta dadka warka dadka uga carartay inta dalka uga carartay bal xisaaba dhibaatada ay Soomaaliya gaarsiiyeen tawaariikhtu wax gaarsiiyay daacunba Allah ka dhigana soo maray abaaraha daba dheeraaday weligeena soo maray waxaan rabnaa nimankaas in abaalkoodii la mariyo
إلهي وحاربنا وقعنانا كل عقابه لمن كاس وإن ماركتي مديدة قش لقى ربحها وإن لمريا وإن صدق كستو صورة قاله اللي يلك الغلو دقالما مقالة المقدسية كسو أروري الدونان مقالة المقدسية وحان قولك برادر وحان كربنا مدى حديثة إني مار تلقاتان إني دادك قلب قود هانتان bulshadu inay la dagaalanto inay gaarsiiyaan dadka hadda kilkiilaha ku haysto cabsida kaliya uga hayo oon jacaylka u hayn waa in la awoodsiiyaa inay sheegi karaan cadawgooda inay guryaha ka soo bixiyaan inay sheegaan farta inay ku fiiqaan meeshay ku og yihiin ilaa qof shabaab ma jirto haddii kale qof caadi oo kale la jooga ama og waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed in la gaarsiiyo inay shabaabka la diriraan oo sheegi karaan meesha uu joogo ay fududeeyaan daalka lagu jiro in lagu guuleysto marka intaasaan rabaa inaan ku soo koobo mar koobaad iyo mar labaad iyo ka badan waa mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeedna waa u mahad celinaa guulaha ay ka keeneen laakiin waxaan isleeyahay wali lama xaqiijin waad ogtiin culays badan inuu yaala midkaas hal la isugu tago hal laga cabir qaato wixii aan soo marnay hadir